kulanka golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu bilowday galinkii hore ee shalay waxa uu soo gaaray ilaa iyo xalay fiidkii iyadoo looga hadlayay gabi ahaanba shirkaasi ammaanka qaranka Soomaaliya. shirka waxaa gudoominaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed. kulanka oo saacado badan qaatay ayaa looga dooday intii uu socday arrimo ay ugu muhiimsanayeen weerarkii al-shabaab ay ka geysteen dhabarka dambe ee aqalka madaxtooyada Soomaaliya iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka caasimadda dalka ee Muqdisho. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Generaal Maxamed Sheekh Xasan Xamed ayaa fiidnimadii xalay kulanka markii uu soo gabagaboobay kadib la hadlay warfadiyeenada waxa uu sheegay in muhiimadda kulanku ahaa ka hadalka amniga isla markaana ay soo saareen ilaa iyo 3 qodob. wasiirka gaashaandhigga ayaa tilmaamay in golaha wasiirada ay magacaabeen guddi heer wasiir ah oo baaritaan ku sameeya dhacdadii argagixisnimo ee ka dhacday magaalada Muqdisho iyo in la qaado tallaabo amni oo degdeg ah. dood dheer kadib waxay wasiiradu ama goluhu oo go'aan ku gaaray 3 qodob oo kala ah qodobka koowaad waxa guddiga uu golaha wasiirada uu magacaabay guddi heer wasiir oo soo baara dhacdadii shalay ka dhacday afaafka madaxtooyada. guddigaas oo laga doonayo in uu u soo bandhigo shacbiga Soomaaliyeed sida wax u dhaceen meelaha gaabiska ka jira iyo waxa lagu kacay adduun weynaha lala socodsiiyo sida xaaladda dhabta ay tahay. wuxuu kaloo goluhu uu go'aan ku gaaray ama uu faray wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga qaranka iyo dhammaan hay'adaha amniga ee hoos yimaada labadaas wasaaradood in ay jawaab adag ka bixiyaan falkii argagixiso ee shalay lala soo beegtay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. wuxuu kaloo ugu dambeyntii goluhu uu go'aan ku gaaray in dhammaan laga bilaabo berito dhammaan golaha wasiirada ay ka howlgalaan sidii loo abaabuli lahaa dhammaan bulshada ku nool gobolada iyo degmooyinka ee dawladda gacanta ku hayso oo la dareensiinayo dhibka ay ku hayaan kooxda nabaddiidka ah ay ku hayaan shacbiga Soomaaliyeed oo u diiday inay nolosha caadiga ah iyo xuquuqdii caadiga ay lahaayeen inay wadankooda ay si xor ah ugu noolaadaan. kulanka ayaa ahaa mid muhiim ah iyadoo dawladda Soomaaliya ay ka jawaabayso ficilada argagixiso ee ay la damacsan yihiin kooxaha dhagarqabayaasha ah shacabka Soomaaliyeed waxaana maalmaha soo aadan la filayaa in ay sii xoogeystaan isbedelada amniga laga dareemayo magaalada Muqdisho maadaama si weyn ay fijignaan dheer ah u muujinayaan ciidamada dawladda meelaha qaarna ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo lagu la dagaalamayo kooxaha nabadda diidan.